warcusub media warcusub.com waxaa hortaagan Saciid Faarax oo ku jira xisbiga SV una sharaxan baarlamaanka Norway kuna jira liiska musharaxiinta nambarka 8aad Saciid adoo ku soo dhawaanaya warcusub.com dadka badankiis ma oga inaa hadda liiska ku jirtid marka maxay ku dhacday taas bismillaahir rahmaanir rahiim wala halka dad mahadsantahay inaad igu soo dhaweysay halkan waxaan doonayaa inaan halkan ka sheegay inaan ku jiro liiska SV nambarka 8aad Saciid waxaad gashay liiska musharaxiinta baarlamaanka Norway sababtu maxay tahay wal SV imka waxaan ku jiraa muddo 6 sano ka badan waxaan kaloo ku jiray liiskii hore biidelada ama kommunalvalga loogu codeynayay anigoo markaas soo galay biidelka Ostenshow imikana waxaan ku jiraa liiska baarlamaanka nambarka 8aad ayaan kaga jiraa waxaan u galay sidii aan wax uga qaban lahaa arrimaha dhibaatooyinka badan ee Soomaalida ka haysta wadanka Norway haday noqonayso isdhexgalka haday noqonayso iskuulada haday noqonayso guryaha waxyaabaha soo dhan baan ayaa igu kalifay runtii oo aniga laftigaygu wax badan ka arkay in aan siyaasadda galo markaygii hore waxaan ka shaqayn jiray ururada Soomaaliyeed waxaan haystay ururkii la oran jiray Somaliska Välfärdsförening oo ahaa runtii ururada ugu weyn waxaan kaloo la shaqeeyay ururo kale oo badan halkaas ayaan anu ka soo bilaabay markii hore siyaasadda Saciid maxaa kamid ah dhibaatooyinka aad rabto inaad wax ka qabato ee haysata Soomaalida xasan waa su'aal fiican weeyaan problemada haysta Soomaalida waxa kamid ah ugu horeysa waa shaqo la'aan weeyaan waxa kaloo haysta Soomaalida guri la'aan waxa kaloo haysta in xagga carruurta runtii weerar xun aad moodeen lagu soo qaaday Soomaalida oo inaga laftigeennuna aynu siyara dhiganay saddexdaa wax baan anigu doonayaa xoog inaan saaro shaqada guryaha iyo arinta carruurta Saciid shaqo la'aanta haysata Soomaalida see wax looga qaban karaa walaal waxaan ognahay Soomaalida in horta shaqo la'aanta dhibaato ka haysto dadka ay inta badan dhibaato ka haysto waxa dadkii inta markii dambe soo galay wadanka waxa dadka loo siiyaa 2 sanadood oo la yiraahdo integration program labadaas sano markay dhamaadaan dadka waxa loo diraa wax praxis plus la yiraahdo praxis plus markuu soo dhameeyo qofku haddana waxa loo diraa kuush marka loo diro haddana kuush kale loo diraa haddana mid saddexaad baa loo diraa saddexdaas kuushii hal praxis oo qaba haddana praxis kale loo diraa walaal waxa weeyaan dhibaato in qofka maalinba meel loo diro oo 3-4 sano ay ka lunto haddii aan anigu ahay SV-ga waxaan kala hadlay arinta waxa iga ballan qaadeen in la soo saari doono sharci oranaya haddii qofku meesha 6 bilood uu ka shaqeeyo in uu xuquuq badan ku leeyahay meesha uu praxis balaska 6 bilood ka galay in shaqo laga siiyo haddii kale in aan marka horeba qofka meesha la geynin ama kuushkiisii lagu sii hayo ama meel kale uu joogo waayo waxaad moodaa inay soo baxeen dad shirkada ah oo ka faa'iideysanaya dadkan shaqo la'aantooda kuwaasoo u isticmaala sidii shaqo caadi ah laakiin aan siinayn shaqo oo mar walba doonaya inay praxis plus ay ma garanaysaa ay ku mashquuliyaan taana waan ka soo horjeednaa waxna waan ka qaban doonaa insha Allah haddii Ilaahay waqtiga uu igu sumo ma waxaa leedahay Soomaalida kuushka waa lagu cabaa wallaahi kelmadda waa lagu cabaa ma odhanaya laakiin waxaan leeyahay waxa weeyaan misuse baa jira ama waxa weeyaan si khaldan baa wax loo isticmaalaya si khaladka loo isticmaalayana waxa weeyaan dee qofkii in sanad 2 sano 3 sano in lagu hayo praxis plus ama kuush maaha Saciid dhibaatooyin kale ee Soomaalida haysta oo as leedahay waxbaad ka qaban kartaa ma jiraan walaal horta dhibaatooyinka Soomaalida haysta aad bay u badan yihiin laakiin sidaan ku sheegay anigu 3 wax baan doortay oo waa shaqada guryaha iyo halka arinta carruurta guryaha haddii aan soo noqdo Soomaalida guriga la'aan xun ayaa haysta guriga la'aan badan baa haysta Soomaalida guriga xun baa la geeyaa marka xitaa kumuunka uu siinayo guryaha waxaan doonaynaa in horta guryaha kommunaalka la badiyo oo dad badan guriga helaan si ay dhibaatada uga reystaan waxaad arkaysaa Oslo kale xaafadda Holmley la yiraahdo dad degan oo bari ka maalin loo rarayo Gruhud haddana sanadka bacdi carruurtii waxa loo soo rarayaa Romsos haddana sanadka bacdi waxa carruurtii loo soo rarayaa Skooyen ama xaafadaha galbeedka يعني عرورتي waxa ku dhacaya jahawareer ba ku dhacaya 4 sano 3 sano 6 sano intaba waxay sameynayaan inay marka ay ku noolaadaan arday kale iskuulo kale guriyo cusub meelo milyan cusub inay dhex galaan taas baan doonaynaa wax ka qaban waxaan doonaynaa qofku inuu magaalada meel ka deganaado meeshana ay carruurtu ku korto carruurta koritaankeedu wuxuu fiican yahay inay meel deganaato uma fiicna in maalinba meel laga raro
taas baan doonaya walaal wax ka qabta haddii alla yidhaah marka Siciid si dhibaatada Soomaalida haysata aad wax uga qabato maxaad ka codsanaysaa Soomaalida xasan walaal waxaan ka codsanayaa Soomaalida in ay aniga iyo xisbigaygaba ay noo footeeyaan waayo aniga iyo xisbiga waxaan isku raacsanahay inaan wax ka qabanno waxyaabahaas runtii xisbigaygu waa xisbi yar laakiin foodkiinu wax weyn buu tarayaa halkii food aniga laysiiya waxa ay tahay sumcad waxaan insha Allah jecelahay in aan ku soo dhawaado arrinta baarlamaanka haddii aanan galin xitaa aan noqdo vaara wax la yidhaa oo markaa la yeedho oo wax layga su'aalo arrimo badan oo aan ka qayb qaato meelaha go'aanka lagu goynayo ilaa hadda waxaan ka maqannay meelaha go'aanka lagu goynayo haddaan nahay dadka xisbiyada ku jira taas baan doonaya inaan wax ka bedelo oo aan gallo meelaha go'aanka lagu goynayo si aanu xisbigan siyaasaddiisa wax uga bedelno oo una soo leexino xagga Soomaalidu ay u baahan tahay ee guryaha shaqada iyo carruurtan laga qaadayo Siciid liiska adiga hadda ku jirtid ma Soomaali kale ku jirtid walaal wax Soomaali kuma jiraan liiska wax Afrikaan kuma jiraan kaliya ayaa Afrika oo dhan kaga jira liiska xisbiga Socialist Venstre Party-ga sidee ku dhacday inaad position saas u sareeyo aad soo gaarto xisbiga asfaa walaal sidaan ku sheegay xasan markii hore in badan baa xisbiga ka shaqeynayay ilaa 6 sano ka horna waxa 5 sano 6 sano ka horna waxa ka shaqeynayay ururada dad badan baa magacayga maqla anigu markii hore Soomaalidana waan u hadli jiray waxaan ahaa wax la yiraahdo talisman baan ahaa yaani u dooda Soomaaliyeed baan ahaa dad badan baa wajigayga garanayo xisbiyada dawladda ayaa wajigayga garanaysa media ayaa wajigayga garanaya xisbiguna wuxuu ogaaday in aan ahay nin la aamini karo sida awgeedna uu igu soo daray xisbiga qaybta waliba xagga sare 10ka ugu horeeyay uu igu soo daray sharaxaad ma ka bixi kartaa qaabka Soomaalidu ku dooran karto walaal waa fudud taasi waxa weeyaan listada waxaad soo qaadanaysaa SV xisbiga la yiraahdo ama Socialist Venstre Party waxaan ku jiraa nambarka 8aad magacaygu waa Siciid Faarax waxaad samaynaysaa xariiq lama saaray laakiin hal nambarka hal ama 1 ayaad ku qoraysaa khaanada yar afar geesta ay banaan ayaad hal ku qoraysaa intaas oo qura weeyaan dabadeedna waad ku ridaysaa boxka lagu footeynayo ama sanduuqa lagu footeynayo ayaad ku ridaysaa